dhakhaatiir badan iyo xirfadlayaal badan oo caafimaad ayaa iloobeen caafimaadkoodii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa dhakhtarka lafaha isbitaalka jaamacadda Jazeera. maanta waxaan rabaa inaan wacyigelin u jeediyo bahda caafimaadka. wax badan wacyigelino ayaga waa jeediyaan oo bulshada iyo dadweynaha way u jeediyaan, laakiin maanta wacyigelintan waxay ku saabsan tahay bahda caafimaadka nafsadooda. way ilaabeen caafimaadkoodii. waxaa jira asxaab badan ama dhakhaatiir ama xirfadlayaal kaleeto oo xilli dambe isku arkaa xaalado xilli hore la qaban karay ama laga hortegi karay. ururka caafimaadka adduunka badqabka iyo caafimaadka qofka wuxuu ku taliyaa 4 shay. midda koowaad waxay tahay qofka inuu cuno dheelitiran oo caafimaad qabto uu cuno. midda labaad inuu ka fogaado balwadda oo igu horeyso sigaarka iyo waxyaabaha kaleeto waddankeena aanan ku badnayn. midda saddexaad in qofka uu sameeyo jimicsi ama physical activity si looga fogaado xanuunada lala xiriiriyo sedentary lifestyle-ka. midda afraad ugu dambeysana ah in qofka emotionally iyo physically uu environment supportive ah ama uu ku jiro meel maskaxiyan u fiican, ama ha noqoto dalka, ha noqoto guriga, ha noqoto goobta shaqada iyo meel walbo. sidaa daraadeed wacyigelintan qaybteeda koowaad waxay ku saabsan tahay si caafimaadkeennii iyo nafsadeennii aan uga warqabno waa inaan ku dadaalnaa 4taas qodob si annagoo ah xirfadla caafimaad qaba aan ugu adeegno bulshada, kadibna bulsho iyo dhakhaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad qaba ay u noqdaan. qodobka labaad ee wacyigelinta waxay tahay dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha caafimaadka waxa ay ka shaqeeyaan meelo indoor ah. meelahaas indoorka ay ka shaqeynayaan qayb meel gudaha ay ka shaqeynayaan waxay u nugul yihiin waxyaabo dadkii bannaanka ka shaqeynayay aysan qabin. waxaana ugu horeeya vitamin D-gooda inuu hooseeyo. markaa aragtid marka qof ka sheeganayo joogjoog, kor xanuun, murqo xanuun, qof dhexaad oo dhallinyara waxyaabo kaleeto aanan qabin, waxyaabaha ugu horeeya oo aan ka fikirayno waxay tahay vitamin D-ga. 3 sababood ayaa u horseeda xirfadlayaasha caafimaadka inuu vitamin D-gooda hooseeyo. vitamin D markii la dhaho waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhacayso caafimaadka lafaha iyo murqaha iyo wax lamida, laakiin vitamin D receptorada waxaa laga helaa xubin walba oo jirkeena. waxaa lala xiriiriyaa difaacii jirka, waxaa lala xiriiriyaa ka hortagii xanuunadii wadnaha, waxaa lala xiriiriyaa xubin walba oo jirkeena, maskaxdii ayaa lala xiriiriyaa, xubin walba oo jirkeena ayaa lala xiriiriyaa. marka calaamaad non specific oo qofka uu daal, tabar darro, kor xanuun, murqo xanuun uu iska leeyahay, laakiin waxyaabaha kaleeto ee xubnihii gudaha ka socda oo vitamin D-gaas yar uu horseedi karo ayagana ma yara. sidaa daraadeed xirfadlayaasha caafimaadka 3 sababood ee u nugleysiinaya in ay vitamin D-gooda hooseeyo waa in ilaa xad lagu dadaalaa in la yareeyo. midda koowaad oo ah goobtii shaqada maba la yareyn karo, laakiin waxaa la sameyn karaa qofkii maadaama subaxii uu soo galay 7:00 meel isbitaal gudaha qorax uusan arkaynin, maadaama vitamin D-ga UV light meesha ugu badan ee laga helay ay tahay in galbihii jimcadii xilliyadii qaar uu helo sun exposure, UV light uu helo. 2 xirfadlayaasha caafimaadka ah cuntadoodii ma dheelitirna. cuntada inkastoo vitamin D badan aan laga helaynin, haddana cayilka cuntadada haddii aysan dheelitirneen waxaa u nugushahay in cayishida. cayilka ama obesity-gana waxay yareynaysaa absorption-kii vitamin D-ga. dhakhaatiirta xirfadlayaasha caafimaadka maadaama environment stress busy ay ku shaqeynayaan, shiftiga galayaan, jadwalka wareersan yahay, waxaa laga yaabaa cunto badan inaysan gurigooda ka cunin ama 1 gelin ama 2 gelin ka yar ay ka cunaan. markii ay maqaayadihii meelihii tagaan xilli leyda cuntadii doontaan, markay cuntadii tagaanna ay dhahaan waxa ugu fudud ee dhaqso la helayo oo probably fast food inay cunaan. waxyaabahaas oo dhan marka waxay ka dhigaysaa inaysan helin cunto caafimaad qabta ama cunto dheelitiran, taasna ay u sababto malnutrition oo obesity iyo wax lamida ay ku dhacdo, taasna ay yareyso absorption-koodii vitamin D-ga, kadibna waxyaabo badan oo kale ay usii nuglaadaan. midda saddexaad ka sokow stresskii nolol maalmeedka iyo magaalada, waxaa ayagu dheer stresskii bukaankii uu la tacaadufa, bukaankii uu ka walwalaa, shaqadii stresskeedii, busigii, jadwalkii, social lifekii, waxyaabahaas oo dhan stresska wuxuu sababaa waxyaabo badan oo aan la sharxi karin. mentally, physically iyo meelo kale oo kala duwan ayuu saameynaa.
sidaa daraadeed marka iyo waxyaabo dheeri ah oo dadka xirfadlayaasha ah ama dadka xoogaa wax fahansan ay sameeyaan waxaa kamid ah isdhaldhalaaliska yarka sunlight kareemadan sunscreenka la marsanayo waxay yareynayaan absorptionkii vitamin D ha u badnaadaan gabdhaha xirfadlayaasha ah ama ragga xataa nafsadooda la marsanayo qofkii indoor ku jiray suncreen soo marsaday sunscreen soo marsaday waxyaabo kale isticmaalayo cuntadiisii dheelitirneen waxaasoo dhan oo la isku geeyey qofkii wuxuu u nuglaanaa marka in vitamin D-giisi yaraado marka si aan u yareyno halista iyo khataraha caafimaad darrada ee naga soo wajihi karta nolol maalmeedkeena qaybihiisa kala duwan waxaan u baahannahay in 4 talo ee ururka caafimaadka adduunka uu ku talinayo aan qaadano si gooniya bulshada waxaan kula dardaarmaa in ayagana ay iska warqabaan gaar ahaan caruurta uureyda iyo dadka waayeelada ah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.